baraha bulshada ee Soomaalidu ay ku xidhiidho sida Facebook, YouTube iyo kuwo kale ayaa noqday bartilmaameedka cusub ee shaydaanku ku adeegto maadaama dadka muuqaalada sheer gareeya ay u fudaydiyaan in fariimihiisa uu si fudud ku gaarsiiyo malaayiin qof. waxaana dadka sida weyn u isticmaala ee ku dhafra ku dhaca xanuunka qabatinka oo ka dhiga qofku inuu ka dhex abaado ama ka dhex baroorto Facebook ama YouTube. qof walboo telefoon haysta ugu yaraan hal mar ayuu sheergareeyay ama la wadaagay asxaabtiisa muuqaalo, sawiro ama xirmooyin. laakiinse ma ka warqabtaa waxaad la wadaagayso dadka saamaynta ay yeelan karaan? ma ka warhaysaa xumaanta weyn ay ku geyaysiin karto aaladani ama wanaaga xaddhaafkeed ka faa'iidi karto? haddii aad caado u lahayd inaad dadka la wadaagto cilmi, aayado qulubta ruxa, xusuusin dadka ugu yeera wanaaga iyo waxyaabo faa'iido leh, ogow in ficiladaadu ay faa'iidaan dhammaad lahayn kuu leeyahay ilaa iyo inta dadka dhexdiisa fiideogan uu ku faafayo. xitaa haddii aad dhimatay oo aad qabri ku jirto aad adduunka joogin, ka fikir wanaaga aan dhammaadka lahayn ee fursadana qaaliga ee si fudud ku fulisay. ka fikir fariinta wanaaga ee dartay ay wadaagaan oo isweydaarsadaan malaayiin qof. arrinkan ayaa lagugu abaalmarinayaa xasanaad aan dhammaad lahayn. laakiinse waxaadna ogeyn, haddii aad caadaysatay inaad ummadda la wadaagto muuqaalo iyo fariimo xun oo khaldan oo dadka wakhtiga ka luminaya, dadkana ugu yeeraya xumaanta, xaaraanta, dadkana aad ku aflagaadaynaysid ama dadka aad ku qoslinaysid si xaddhaafa, ogow gebi ahaanba camalkaagu wuxuu kuu horseedayaa dembiyo waaweyn. cagsiga faa'iidadu waa khasaare. ogow kalibyada fideoga qaarkood waxay socdaan daqiiqado badan. ka fikir adigoo qayb ka ah mashruucaas wakhti lumiska ee dadka loogu yeerayo nacaybka, qabyaaladda, kibirka iyo isla weynida, qaawanaanta ama lagu sharaf dirayo rag iyo dumarka. wakhtigaas waxaad qofka aad la wadaagtay fideogan ka dhigaysaa dhibanahaaga, maadaama aad dembiga mas-uuliyaddeeda inta badan adigoo aad leedahay, maadaama aad adigu ku dhiirigelisay xumaanta uu isaguna sii faafiyey oo dad kale la wadaagay. adigoo sugeyn ayaad shaqaysatay buuro dembiyaah iyo ficilo xun dhabarkana saaratay. mar walbood la wadaagto fariimahaas waxaad la mid tahay adigoo yiri waxaan kula wadaagayaa fideogan oo ii soo jiidi doona dembiyo waaweyn ee adiguna sii faafiya oo la wadaaga asxaabtaada oo siyaadsa dembiyo waaweyn oo ku siyaada dembiyadaadii hore. subxaan allah ayaa rabaa arrinkaas inay ku dhacdo. ka baq allah ayaa hore inoogu digay suuratal yaasiin oo allah uu ku yiri, annagaa noolayna wixii dhintay, waxaanan qornaa oon diiwaan gelinaa waxay horey u marsadeen iyo raadkoodiiba. wax walbana waxaan ku koobnay kitaab muuqda. raadkoogu waa waxaa qofku uu ka tago ee ficil fiican ama ficil xun. haddaba haddii aad caado u lahayd inaad qaybiso ama dadka la wadaagto fariimo xunxun, hadda ka toobadkeen si allah kugu dembi dhaafo dembiyadaadii hore oo dhan. haddii aad aragto ama hesho fariimo khaldan, waxaan kugula talin lahayn inaad fariimahaas aadna akhrisan si aadna u damcin oo shaydaanku kugu dhiirigelin inaad faafiso. been naftaada ha u sheegin. haddii uu marku soo gaaro fideogan, adiguba waad ogtahay cidda kula wadaagta fideoyada iyo fariimaha khaldan. markaa walaal, iyagana u nasteexe oo u dir fideogan si iyaguna ay uga baxaan ficilada xun. adigoo la wadaagaya fideogan si allah kugu naxariisto, ajarna kuugu qoro aan dhammaad lahayn. like oo la wadaaga asxaabtaada.